sankuneefla kasta oo ku nool dunida guudkeeda wax buu xiiseeyaa naftiisuna jamata mana aha mid ceeba ee waa wax uu guul leh ku abuuray hanaanka guurku waa mid ka mid ah waxyaabaha mudnaanta iyo ka fiirsiga la siiyo nin walbana dhinac buu ka fiiriyaa bilantuu rabo in uu waayaha nolosha la qaybsado muddooyinkan dambe waxaa muuqata in ay dhalin badani qiimaynayaan gabdhaha miyiga ku nool iyagoo sababo kala duwan u cuskanaya halka qaar kalena ay qabaan in kuwa magaaladu kaga wacan yihiin la qabsashada nolosha maxamed waa mid ka mid ah dhalinta xaafadda Islii ku nool waxa uuna si guud uga hadlayaa aragtidiisa ku aadan arrinkan bulsho sideedaba waxa waxay ka koobantaa laba qaybood waxay kala yihiin dad wanaagsan waa leeyihiin dad xun waa leeyihiin balse haddana markii waxa la isla barbar dhigayo majority ama meeshii lagu kala badan yahay wanaag iyo xumaanta xagee lagu kala badan yahay baa haddana la isweydiiyaa ani waxaan aaminsanahay inay ku wacan tahay qof kasta aad u joogo inuu ku noolaado inuu markasta ay ku fiican tahay hadda مثلا wiil magaalo joogo haduu ka soo guursado gabadh miyi joogto xaaladii magaalada inay la qabsato aad bay u adag tahay maxaa yeelay nolol ama jawi ka badalankii hore ay ku jirtay ay ku soo biirtay marka muddo la qabsan macnaheedu muddo ku qaadanaysa inay la qabsato arinta ayadaheed horta programkan waxana waa wax ku aadan noloshii iyo qaabka qofka la qabsan lahaa midna waa mid ku aadan qofka personality-giisa iyo shakhsi ahaantiisa Adam Xasan waxa uu qabaa isna aragti midaasi ka duwan maxamed aad baan kugu mahad celinayaa waxa kale oo mahad celinayaa dhamaan shaqaalaha Star FM haddaan usoo gudbo mawduuca ah haweenka guurka iyo miyiga iyo magaalada Soomaalidu waxay tiraahdaa waana abuur baa ka horeysay aniga waxaan aaminsanahay qofka beeyada uu ku soo koray iyo nidaamka lagu barbaariyay inuu wax weyn ka bedelayo noloshiisa sababtoo ah dhaqanka wuxuu ku dambeeyaa baadiyaha waxyaalaha kale ee ah la qabsiga magaalada waa wax qofka loo tarbiyeyn karo xayawaanka waa la tarbiyeyn karaa laakiin caqabadaha hadda halkan ka jira waxaan isleeyahay dhaqankii guurkii wuxuu isugu haray baan aaminsanahay miyiga waxaana ugu sababaynayaa markaad fiiriso miyiga iyo magaalada furiinka wuxuu ku batay magaalada miyiga waxa uu sababa dhaqankii baa ka jira hooyada waxay la dardaarmaysaa gabadha waxay siinaysaa waayo aragnimo fara badan sababtoo waxa ka caawinaysaa isleeyahay dhaqankii baa meesha yaala mar walba aniga waxaan tasabood gareynayaa gabdhaha miyiga inay guurka hadda dhaqankii waa iyaga isugu haray maxamed iyo aadan waxaa jira arrimo uu mid walba ku sabaynayo aragtida uu ka qabo gabdhaha miyiga iyo magaalada horta waxa ku taageeray waa wax meesha yaala qofka bilaadanka wuxuu u baahan yahay training markii guur iyo dhaqan imaado hawl fudud ma gabdhaha miyiga waxaan isleeyahay waa gabdho u bisil hawshaas inay qabtaan sababtoo ah miyiga waa ka dibadaya magaalada way ka hawl karsan yihiin way ka bislaadeen way ka dulqaad badan yihiin waxa kale oo inta u dheer gabadha markii ay ninka gayaankeeda xulanayso ama ninka gabadha gayaankiisa u xulanay waxa jiro waxyaalo la isku soo hal xiraalayso si dhaqankii loogu bees garay dhaqanka hadda magaalada ka jirana wuxuu uga duwan yahay de waa ku arkay waa ku caashaqay caashaqaasna inta badan bil ma gaaro waa waxa keena burburka qoyska aniga marka waxaan ku taageerayaa gabdhaha miyiga inay yihiin dad u bisil hawshii guriga ka soo bixi kara training iyo tababarna u haysta adkaysigeedana leh hawsha adag ee loo wakiishay ka soo bixi kara intaas ku taageeraya gabdha miyi doona maqashee gabdha magaal doone muxuu isagu ka yiri arrinkan tan miyiga joogto iyo tan magaalada joogna waa isku dhaqan oo dhaqan Soomaaliyeed bay wada haystaan midaan magaalada joogto in dhaqankaas ayada ah iyo wanaagaas ayada u siyaadiso wax la yiraahdo waxbarasho oo diintii baranaysa cilmiga kale baranaysa qof marka mawdi ku jiro iyo qof iftiin ku jiro isku mid ma ahan hadda ka hor baa gabadha waxa ku dhacday ninba adiga iska jeclaado banaanka si fiican uga jeclaaday inantii buu u yimid inuu adiga wax xun la doonto damcay walaalay wuxuu yiri arintaasan ka rabaa arinta uma san qarin aad baan kaaga helay marka waxay tiri sharad baan kugu xirayaa sharadigaas ka bacdi markaad ka soo baxdo ma arinta ayada ku sameynaya waxa sameysay tiri 40 bari inaad masaajidka jamaacada ku tukato maalin kasta saf u hore aan ku tukato waliisoo ka sheegay tiri hataa jamaacada dad Allah akbar laga hor dhaho meesha damaad ka gasho aan ka baxay sharadkii saf koro inaad ku tukataa 40 bari salaad kasta aad ku tukato markaas ka bacda afartan markuu dhamaatad iimaan kartaa inankii hayuu yiri de wuxuu yiri intaas muddo lagu andaan ku heli karo gabadhaas hal ilaahay way fudud waan sameynaya shan bari buu arinta ayada wadayo maalinka safka hore galay markii dambe dadka dhan fiiriyay wuxuu yiri niyow adiga hebla u tukanaysaa waxa weeye intaana qof ilaahay bay u tukanayaan waa dad wanaagsan adiga ninkii ilaahay markii daaya qalbigiisa ku soo dejiyay ilaa amal wanaagsan buu sameynayay oo safka hore ku tukanayay sidoo salaadana qofka waxay ka reebtaa ama ka micnaysaa waxyaalaha xun oo dhan ayada markaas ayada xigmadaasi ka lahayd inankii wuxuu go'aan ku qaatay in inantii uusan la kulmin salaadiina uu si wanaagsan oo fiican u tukado una sii wato waligiis waxay daayis uu ku helay jamaacadaas uu ka qayb galay ayadana waxay ogeed nin salaada جامعة كنت كذا حل كستو كذا إن حران وكبحاي حاول يقف مجال الشوق وحياة بقى موكل بحسن والبحن هذا مر وحيل هذا نيجاتيف سايد بوزيتيف سايد من هذا لنا يعني في عن لنا حنو إلى هذا haddaad intaas ogaateen oo aad maqasheen siday ku wacnaan lahayd in la isula jaan qaado oo la isula heli karaa jaanta warbixinta dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu guul la saamaxo